kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen salaadiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda beesha sade isla markaasina ay ka soo qayb galeen ugaaska guud ee beesha sade ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi odayaasha dhaqanka siyaasiyiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee beesha sade kana dhacay hotel maka ee magaalada Kismaayo ayaa ahaa mid ugaaska lagu sagoontinayay isla markaasina ay ku dardaarmayeen ugaaska iyo waliba bulshada reer sade ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland kulankan oo intii uu soconayay ay ka hadleen odayaasha dhaqanka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ahaa mid ay ku wada dardaarmayeen ugaaska guud ee beesha sade ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi oo muddo 4 bilood ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale dadkii ka soo qayb galay kulanka ugaas anagu dardaarankaagi waa qaadan haddaan ragnahay waa qaadanay haddaan gabdhanahayna waa qaadanay waana samaynaynaa waana isla jiraynaa ugaas anagu waxaan kaa ballan qaadaynaa inaan midnimadayada ceshano waxaan kaa ballan qaadaynaa Jubbaland inaan nahay waxaan kaa ballan qaadaynaa ninkii madax noo ah Jubbaland inaan ku daba fayno oo aan isaga xoog siino aad baan ugaasnimadaada u soo dhaweynayna waa qaadanay waliga diidayna raalli baana ka hadlay dadka midnimada wax afka laga sheeg ma waxtasimu بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بالله إله سبحانه وتعالى waxa loo baahan yahay in laga dhabeeyo adar cali wuxuu lahaa in badan aan sheeg waa runtii waa sheeg laakiin haddaan si rasmi ah gacmaha soo qabsan wallahi thumma wallahi cidna jiiri kartin aysan jirin laakiin fihi ma fihi calooshay afka xogaa isdiidan horta waxa aan sheegayna been yaana ka sheegin ilaahina ugu baqno si cadaalad ah oo midnimo aan u wada dhaqanno sadow danaheena aanu midowno waxa tabashada la yiraahdana ma dhamaato mana dhamaanayso laakiin tabashada waxaan codsanayaa qof kasto wixii aad tabanayso inaad ku lifaaqin wax la yiraahdo colaad annagoo ilaahay ku xiran cadaalad ku dhaqmayna masiirkeena iyo quruxdeena ka shaqaynayno aanu wanaajina horukaca iyo horumarka aanu leenahay aanu iska bilowna annaga midka Soomaalida aynu la leenahay kan aanu leenahay maamulada jira ama federaal ha ama maamul goboleed ha ahaadee aanu si wanaagsan hadii aan leebno aanu u muujino oo aanu ku dhaqaaqnay insha Allah ugaaskuuna la dardaarmay munaasabadana waxa ay dardaaranka ugaaska ugaas waad mahadsan tahay waana soo dhaweynaynaa waana ayideena sidii ragga hore ay yiraahdeen midnimada iyo meel kastaba marka sade meel uu joogo horta inuu midoobo oo Soomaaliyeed la midoobo dadka Soomaaliyeed oo la deganahay oo dariska la dhahay si fiican oo gobonimo inaan la dhaqano annaga hadda waxaan ugaaska ka rabnaa annaga gabdha ahaan oo aan ka rabnaa oo aan ka codsanaynaa horta marka koobaad ducaan ka rabnaa haddaan hay gabdhaha beesha sade ee gobolka midda labaad waxaan ka rabnaa meesha la yiraahdo abaaraha jira inaan isaga warqabno oo xiriir aan ka leenahay gobolada aan leenahay iyo degmooyinka dagaalada halakeeyeen sida mudug oo kala cabdo kale in aan dad u dirsano ugaasku uu dad u yeero salanta ugaaska baahan saaka bixinaya war salanta ugaaska baahan saaka bixinaya war ugaasal dhigweeya Soomaaliya beed ugaasina xaashiyo unku wadayaaqaan war ugaasina xaashiyo unku wadayaaqaan ugaas la halmaday ugaas cana lagu shubto ugaas nabadii xaro tay cilmiga ku keen war ugaas nabadii xaro tay cilmiga ku keen ugaas beeldahajiyo boqorkeenisade intaasi kadib ayaa waxaa madasha ka hadlay ugaaska guud ee beesha sade ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi waxaana uu bulshada reer sade ee ku dhaqan deegaanada Jubbaland kula dardaarmay in ay midoobaan isla markaasina ay gacmaha isqabsadaan ayna si wanaagsan kula noolaadaan dadka ay deegaanada wadaagaan waxaana uu sheegay in maamul goboleedka Jubbaland ay bulshada reer sade si wanaagsan xilligan u taageerayaan dadkan halka fadhiyo
waa beeshii Sada weeye beesha Sadana waxay ka tirsan tahay dadka reer Jubbaland oo caasimadeeda iyo dawladeeduba ay halkaan tahay saas darteed marka haddii aynu waqtigaas adag oo wanaaga leh oo wixii aynu u howlgalnay khayr alla noogu dhameeyay hadday tahay inaan idinla dardaarmo oo aanu faatixada isu marno adinka iyo dadkiina kaleeto oo shacabka oo Soomaaliyeed iyo xukuumadiinaba arintaas ayada ah yaan maanta intaan idinkugu yeera runtii waxaan hadda aan ka sheekeeyay oo aanu qabanay ma ahayn mid aan anigu qabtay waxa weeye mid rag iyo gabdhaba adinku ad qabateen bay ahayd waxay ahayd raggii yani hawshaas ayada ah yani gacanta ku hayay oo yani maaragtay hawshaas najixeeda iyo guusheeda in yani maaragtay maanta la gaaro oo buuqyaridaas iyo khilaaf yaridaas ay ku dhacdo waxay ahaayeen ragga aniga hadda garbahayga fadhiya oo halkaan yani fadhiya ayay ahaayeen waa u mahad celinayaa dhammaantiin khaasatan kabeel ahaan sidii yani urursanaanta ahayd oo midnimada lahayd oo hawshaas ad ku dhammayseen adinka iyo odayaashiina oo garab u ah laga bilaabo waqtigan hadda maanta ah oo aan dhihi karno lugihii dabarka wuu nooga baxay wixii ummadda Soomaaliyeed nagala dhaxeeyay wixii un haatan yani wada jir loo wada joogo hadda ummadii dhismaheeda maalin walba wuu socdaaya waa meesheeda waxaanu jecelnahay inaanu dagaanadeennii inaan marka salka dhigano oo aynu ka shaqayno horumarkii dagaanadeena aynu ka shaqayno sidii dhaqankii reer Sada uu isugu imaan lahaa sidii wixii ka halaysan uu hagaagsan lahaa sidii dib u heshiisiin uu u gali lahaa sidii dhaqankiisa uu aruurin lahaa yani maaragtay darfaha iyo haddii la kuusma ogol yahay dacalada gobolada kala jira oo dadka u taliyay ah oo intaasoo sano aynan isu imaanin haddayna isu imaaninna runtii aad garanaysaan inay wax badan inay ka kala daadsan yihiin haddana aan dhihi karno qolo walba iyadoo degmadeedii iyo meesheedii joogto yaa haddana waxa un laga shaqaynayay inaan wax hagaagaan taas ayada ahna intaa ka shaqaynaysa ayagana waan u mahad celinaynaa intaasi waxaa weeye waa ujeedada maanta fadhigaan aan idinkugu yeeray waxaan jecelnahay maanta wixii ka bilowda inaan inta dhulkanagii aan xaaqano inaan xeerarkii aan lahayn dhaqamadii aan lahayn duqowdii aan lahayn midnimadii aan lahayn intaba inaan inta isu keensano aynu hawshaas ayada ah aan ku dhaqaaqno annaga oo wada jirno oo dhaqankanaga iyo siyaasadanada intaba yani hawshaas ayada ah aynu ka midaysan lahay intaa waxaan oga baxahayaa halkaas waxaan u soo noqonahayaa magaaladan annagu aan hadda joogno runtii magaaladan aan hadda joogno wixii adinku maanta idin yaalla waxaad ogsoon tihiin waxaad degan tihiin caasimadii dalka oo aan dhihi karno Jubbaland caasimadeedii inaad yani maaragtay adinku saldhig ad u tihiin Jubbalandna waxay ka kooban tahay 3 gobol ayay ka kooban tahay arintaas ayada ah Jubbaland markii la yiraahdo haddana waxay ka koobantaa dagaanay ka koobantahay oo dagaanadaas ayada sidaad reer Sada hadda u tihiin oo kaleeto yaa ummadda Soomaaliyeedna ay u degan tahay halkaas adinka waxaan maanta idinkula dardaarmahayaa meel haddii la joogo maamul baa ka jira dhaqan kaleeto oo aad isku xiran tihiin oo dhaqankii Jubbaland ahaa baa jira arintaas ayada ahna waxay ku xiran tahay wada shaqayn iyo midnimo ka bilaabata shacabka ka bilaabata dhaqanka ka bilaabata dawladda Jubbaland ayay hawshaas ayada ah ayay ku socon kartaa taas ayada ahna waxaan idinkala dardaarmi lahaa dadka bini aadmiga ah maalin kastaba yani tabasho ma dhamaato waa adduunka horumarkiisa yay la socotaa waxaad ogsoon tihiin yani Jubbaland shalayta intay la ekaydna waad ogeydeen maanta inta haddii ay maraysana waad la socotaan saasayna tabasho u dhammaanin oo horumarkuna u socdaa maalin walbana in wax dhinaca laga hagaajiyo ay ku jirtaa waxaan idinkula dardaarmi lahaa inaad samaysataan guddiyo inaad samaysataan guddi dhaqan ah oo adag oo ka bilowda sidaan hadda aan u leeyahayba dhaqankii baanu dib ugu noqonaynaa inaan u fadhiisano oo dhaqan reer Sada oo isku xiran la helo inaad dhaqankiinii waahubaa inaad lahaydeen inaad sii hagaajisaan salka aad u dhigtaan guddigiisii iyo dhaqankiisii oo dhan yani maaragtay inaad yani maaragtay boorka aad ka jaftaan arintaas ayada mid baan ka dhihi lahaa sidoo kaleeto gabdhaha waa xoog adnaan ka maarmin oo aad ogsoon tihiin meel kasta oo la isugu imaado waxa qurxiyo
waxaa hagaajiya waxaa ka qaadima waxaa fadhigan oo dhan noo sameeya inay gabdhaha soomaaliyeed inay yihiin ayagana runtii si gaar ah aan ugu mahad celinayo sida ay maalin walba ay noola garab taagan yihiin wanaagga iyo horumarka iyo waxaan wadno inay qurxiyaan ayagana ayaga iyo qoysaskoodaba waana ku ammaanahaya waana ugu ducaynahaya intaas haddaan ka gudbo ayagana inay guddigooda ay leeyihiin oo guddiga dhaqanka iyo guddiga haddii la kusma ogol yahay iyo gabdhuhu ay isku xiran yihiin sidoo kaleeto inaad leedihiin guddigii dhalinyarada oo asaguna yacni maaragtay dhalinyaradii jiilkii soo kacahayay gacanta ku qaban lahaa oo isku xiri lahaa dhaqankii gabdhihii iyo dhalinyaradii sidoo kaleeto culamaa udiinkiini ayaduna haddee waa qori horaadka ay tahay waa lagama maarmo inaan idhaahdaba ayna ku jirin oo ay tahay diinta nolosheennii iyo wacdigeennii iyo horumarkeennii iyo nabadeennii intaba wixii tilmaamahayay ay tahay intaas ayada ah markii halkaas aynu ka gudbino waxaa haddana jira maamul baa jira maamulkan hadda jira waxaad ogsoontihiin reer Sade wuxuu ku leeyahay xibno badan oo ilaa iyo madaxweyne ku-xigeen gaarsiisan ayuu ayaduna leeyahay wixii aad tabanaysaan oo adinku markaas ayada maamulka aad ka rabtaan oo horumarkiina iyo noloshiina iyo qaab dhismeedkiina ka tirsan adinkoo sidaas u midaysan oo gudiyadaas leh inaad si nidaamsan yacni maaragtay dadkaas ayada ah hadday baarlamaan tahay iyo hadday tahay maamulka kaleeto ka sareeyo oo ilaa iyo madaxweyne ku-xigeen ka bilowda ilaa madaxweyne gaarsiiya qaabka hadduu ilaahay kuusuma ogol yahay ayadana aad u macaamilahaydeen oo danihiina iyo horumarka gobolka iyo wixii adinku aad tabanaysaan oo horumarka gobolka iyo waxa adinka communitygiina aad dabanaysaan in arintaas ayadana arin sidaas isugu xiran ay noqoto intaas ayada ahna saasaan idinkagala dardaarmi lahaa intaa haddaan ka gudbo adinka waxaa intaa dheer oo kaleeto dhaqankaas halkaan laga dhisay waxaa weeyaan dhaqankii kaleeto oo asaguna laga dhisahayo ayaduna dagaankii kaleeto oo gobolkii asaguna u weynaa oo ciddaan ayadana saldhig ay u ahayd in ay noqoto marka mid isku xiran oo hadday fadhi tahay iyo hadday tahay isu imaatin intaba dhaqanka lagu hagaajinayo waxaa weeye dadkii hawshaas ayada gacanta ku qaban lahaa baa tii ma ahan talada reer Sade inuu qof keliya inuu ahaado maaha inay koox keliya ay ahaataan maaha talada waxay ku fiican tahay midnimo ayay ku fiican tahay wax alla wixii naga baasan inaan midnimo ku hagaajino wax allaale iyo wixii aan tabanayna inaan haddii la kuusma ogol yahay midnimo inaan ku hagaajino wax alla wixii yacni qaanuun ah iyo wixii sharciya oo dhaqanku aynu leenahay inaan midnimo war maxaan lahaan jirna aynu ku niraahno war maxaa naga burbursan maxaa noo dhaqan inaynu niraahno intaas ayada ahna halkaas ayada ah yaan uga baxahaya intaas haddii aan ka gudbo waan is aragnay anigu madaxweynaha waan is aragnay waana soo dardaaranay intaan adinkaan hadda aan idinkala dardaarmahayo oo kaleetana waan kala dardaarmay waxyaala khaas ah oo gaarar ah oo aad igala dardaaranteenna ayadana waxaa weeye waanu ka wada hadalnay si qurux badan oo wakti leh oo hadduu ilaahay kuusma ogol yahay leh wakti aan ku kala dhargi karno yaan ayadana aan uga wada hadalnay wixii aad hadduu ilaahay aad igala dardaaranteen hadee dadku kulligiis ma wada dhammaan kare waxaa laga yaabaa waxyaala un aad tabanayseen in dad ii soo gudbiyey inay jiraan ayadana si fiican baan isula afgaranay duqowdii baanaan ayadana yacni maaragtay ayaan si gaar ah yaa ayagana iiga imaan doonta oo aan uga sheegi doona arrintaas ayada ah waxaan qabaa inaan sidii aan uga soo dardaaranayna inay tahay sidaan adinku haatan idinla dardaarmahayo oo dhan inaan ayagana aan ula dardaarmay madaxweynaha laga bilaabo oo aynu in yacni maaragtay dadkii horumarkiisii iyo nabadiisii iyo midnimadiisii in intaba yacni maaragtay laga shaqeeyo oo dadkii yacni maaragtay kalsoonidiisii iyo wanaagiisii intaba laga shaqeeyo arrintaas ayada ana madaxweynuhu aad iyo ayadana iyo hawshaasi iyo runtii yaa wixii aanu ka wada hadalnay iyo u soo dhaweeyay ayadana midaas waxaan uga baxahayaa halkaas waxaan u soo noqonahayaa halkaan fadhigii maanta aad imaadeen fadhigii halkaan aad u imaadeen runtii waxaan dhihi karaa Sadana guul buu u yahay Jubbaland Soomaalidii joogtayna guul bay u tahay maamulka Jubbalandna guul buu u yahay sababtoo ah wixii aad ka shaqaynayseen qarankii Soomaaliyeedna guul buu u yahay intaba wixii aad ka hadlayseen intaasoo is wada daba taalo sidii yacni maaragtay wanaag iyo Soomaalinimo iyo dagaan Jubbaland ah iyo nabad sidii aad uga shaqayn lahaydeen buu hadalkiina ku uruuray haddaan la isu imaanin oo dadka aruuriya iyo waqti aad isu imaadaan haddii aysan jirin intaan hadda maanta wanaag aad ku hadasheen
oo gabdhihii caawa waxay afkooda oga hadleen aad maqlayseen oo raggii wuxuu ku hadlay aad maqlayseen intaas ayadaa way idinka maqnaan lahayd intii maanta aad ku hadasheen oo aad u badashaan midnimadiina qaybaha ad ka koobantihiin haddii ay siyaasad tahay oo madax jubbaland oo sare ay tahay midii jifada ahayd oo adinka halkan wakiilka idinkaga ahayd ay tahay intii aan sheegay oo guddiyo isdaba yaalay ay tahay intaas ayada unbaa idinka dhiman waxna inay aasaasan yihiin waan hubaa arrintaas ayada ah waxaan leeyahay sidaas ayada ah ha loo qabto waxaan idiin sheegahayaa ninkii maanta xildhibaankiisa wax ka sheego oo wasiirkiisa wax ka sheego oo madaxweyne ku-xigeenkiisa wax ka sheego oo jubbaland madaxdeeda wax ka sheego haddee cid noo bedelaysaa ama idiin bedelaysaa ma jirto waxaa ka fiican inaad sidii yani maaragtay loo hagaajin lahaa oo loo garabgeli lahaa oo wax allaala iyo wixii ayaga yani maaragtay ka kala daadsan loola hagaajin lahaa ayagana wanaag loogu yani maaragtay loogu tilmaami lahaa loo garabgeli lahaa qofka haddii la yirahdo waad xun tahay ma wanaagsanaanahayo oo kii fiicnaa baan wanaagsanaanay kii ugu xumaa haddii la yirahdo waad wanaagsan tahayna waxaa laga yaabaa inuu wanaag inta isxilqaamo wanaaggii uu gaaro intaa waxaan oga baxayaa halkaas waxaan leeyahay marka ugu dambaysa waxaan reer Sadow idinkugu ducaynahayaa midnimo waxaan idinkugu ducaynahayaa midnimo waxaan idinkugu ducaynahayaa nabad waarta waxaan idinkugu ducaynahayaa qalbigiinoo ilaahay isu dumo ummadda Soomaaliyeed oo aad la dhaqantaan oo xurmada iyo sharafka aad ku lahaydeen inaad noqotaan kuwii yani isku duugeeda maanta ka qayb qaato waxaan ku ducaynaynaa oo kaleeto in ilaahay yani Jubbaland waxay kamid tahay qaranka meelaha ugu waaweyn oo ku taagan yahay in nabadeeda iyo midnimadeeda iyo Soomaalinimadeeda in la isku duwo waxaan ku ducaynaynaa qaranka Soomaaliyeed oo hadda maanta la dhisahayo in ilaahay uu nooga soo saaro ku ummadda Soomaaliyeed midnimadeedii iyo walaalnimadeedii iyo ummadda Soomaaliyeed wixii ay ku lahaan jirtay dal iyo dibadba ku soo celiya oo mas'uul alla oga dhigo in ilaahay ayadana alla namakansiiyaan ayadana aan ku ducaynahaya intaas haddii aan halkaas oga baxasado waxaan idin leeyahay waxa macnaha leh waxa weeye waa midnimo weey tafraaruqu waa waxa caawayto yani maaragtay qofnana meel aan geynin berrina adinka oo aan kala maarmin baad isu soo noqonaysaan marka intaad hadda wada jirtaan baa waxaa la rabaa inaad midnimadiinan aad ka shaqaysaan horumarkiinan aad u gudubtaan intaas halkaasaan oga baxahayaa intaas haddaan ka gudbana wixii kaleeto oo aan ka shanqariyey wuxuu ahaa sidii aan midnimo buuxda oo dhaqankiinii uu ka kooban yahay sidii aan u raadin lahayn oo ad yani maaragtay santar dhexe oo dhaqankiina iyo maamulkiina isu soo hirta inaan samayno yaan hadda wixii ka dambeeya yaan u istaagaynaa sidii horeyba aan ugu furay intaas haddaan ka gudbo nimayahow maantayta waxaa lagu jiraa wakti abaar ah oo aad iyo aad yani maaragtay runtii kulayl badan oo u muuqanaya maanta lagu jiraa abaartaas ayada ah waxaad ogsoon tihiin waktigii hadda dayrta la sugahayay horteed halkaan anagu hadda maanta aan joogno waxaanu ku qabanay fadhi looga hadlahayo abaarta maantayta sida ay tahay oo Soomaaliya ay uga jirto khaasatan sida ay Jubbaland ay uga jirto khaasatan sida gobolka Gado oo gobol weyn maantayta uu ugu sii daran yahay Jubbaland markii la yiraahdo yaanu ka hadalnay maalinkaas ayada ahna wixii aanu ka hadalnay waxay ahayd dunyada in baabuur lagu rarahayo in meel allaaliya meel ay u socdaan iyo meel ay u guurahayaan midna aynan aqoonin wixii la sugahayayna roob uu ahaa wixii maalinkaas ayada aan ka dhawaaqayno adduunka iyo dowladda Soomaaliyeed iyo tan Jubbalandba aanu uga dhawaaqaynayna waxay ahayd yani maaragtay roobkii oo soo daahay roobkii maanta lama hayo haddii ay jirto meelo wax ay ka da'een waxaa weeyaan ummadii Soomaaliyeed oo dhan baa isugu tagtay dunyadiina waxay kula tagtay raafka iyo hadduna kuusma ogol yahay iyo gowska yay kula tagtay saas darteed maantayta waxaa lagu jiraa xaalad runtii markii horeetana yani jilaalkii lagu jirayna uu dheeraa aadna uu liitay oo wax baad la yiraahdo aysan jirin maantana dayrtii la sugahayay lama hayo oo Jubbaland waad ka waraysaan meelo fara badan oo usan goboba usan ka dhihin
ayaa jirta saad ogsoon tihiin luuq laga soo bilaabo lagu geeyo meesha la yidhaahdo ceel waaq lagu geeyo baar dheere laga rogo faafacdhuun laga rogo intaas oo dhan waxaad ogsoon tihiin wax tif ah oo roob uu ka yiri ma ayna jirin waana intii dunyada Soomaaliya maanta ugu badan meelihii yani maartay ay joogtay ayay ahayd arintaas ayada ah maxaa kaleeto oo haddana maanta yimid dhulka markii la qodo waxaa laga cabaa biyo yaa laga cabaa oo inta dawda oo la dhaco iyo inta la qodaa badan oo ceelasha ah waxa maanta dhacay waxaa ka mid ah in meelihii waadiyaalka ahaa oo biyuhu ay mari jireen ilaa biyihii marahayay yay ahaayeen waxa turka laga qodahayay wixii ceelka dhow laga qodahayay wax midka dheer laga helay waxaa la waayay wax allaala iyo wixii yani maaragtay ceel ahaa oo jiray yaa biyihii oo dhan ay ka gureen salaxna loo dhaca degaano dhan oo dadkii deganaa maantayto yani maaragtay biyihii aysan haynin baa jira bal dunyadii hadday halkaa istaagtay maxaad u malaysay marka haddaan biyo lahaynin markaas ayada ahna oo baadkii yani dunyadu ay ku noolayd dadkuna waxa uu ku nool yahay magaalo waxa ay ku nooshahay waa dunyada iyo nafceeda wey haddii marka aan lahaynin haddana biyihii oo roobkii marahayay la waayay oo intaas oo la sugahayay oo intiiba uu baajiyey maxaad moodaa khatartaasaa maanta jirta marka ugu horeyso waxaan leeyahay waxa ugu weyn oo maanta inta la hoosgeli karo waxaa weeye waa ilaahay abaartaas ayada ahna iskama imaanin ee waxaa weeye wax dadku gacmihiisa danuub uu kula yimid weeye marka ugu horeeyo inaan ilaahay yani maarta aan u qushuucno oo aan ilaahay barino ilaahay baa wax deeqa waxna kafayn karahaye ilaahay inuu dhibkaas iyo abaartaas maanta inuu ilaahay ummadda ka bixiyo oo gacan qabow ilaahay maanta ummadaas u deeraamiya Soomaaliyeed meel alla meeshay joogtaba yaan ilaahay ka baryayna intaas haddaan ka gudbo waxaan soo joodinayaa dawladda Jubbaland waxaan is aragnay madaxweynihii Jubbaland baan is aragnay waxa maanta yaala oo gobolka ka jira ayadoo Soomaaliya oo dhan ay ka jirto yaanu ka wada hadalnay ayaguna walwalka inta aanu qabno shacab ahaan in la mid ah ama in ka badan ayaguna yay qabaan wuxuu ii sheegay inay fadhi balaaran oo aad ah inay ku jiraan wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland inay madaxdeedii ay fadhido gudiyadii qaabka loo kala qaybin lahaa iyo qaabkii hawsha yani maartay loo gali lahaa iyo madaxweynihiina uu amray arintaas ayada aana loo fadhiyaa intaas ayada ahna waxa weeyaan madaxdii Jubbaland oo madaxweynihii uu horeeyay xaaladaas adag oo maanta soo wajahday saasay ayaguna ay ugu muuqataa ayadana madaxweynaha wuxuu ii sheegay annaan ka codsaday in yani maaragtay waad ogsoon tihiin abaartu maanta inta meelo badan bay ka bacday waqooyi oo kale tay hadii la kuusma ogol yahay ka dhacday gobolada dhaxo yay ka dhacday intaas oo dhanna waxa weeyaan hadee maanta Soomaaliya meeshii ay wax ka dhacaanba way isu gurman jirtay haddana waxaa laga rabaa inay isu gurmato meel allaaliyo meeshay wax ka jiraan iyo siday u kala daran yihiin sidoo kale galguduud caabud waaq oo kaleeto iyo balanballe oo kaleeto dadkii deganaa way ila soo hadleen ayaguna waxay yiraahdeen maanta ilaahay baan leenahay ayaguna yiraahdeen intaas waxaan leenahay ilaahay baan baryaynaa ilaahay inuu noo sakhiro oo waqtiga kan hadda hor leh oo roobkii yani hadda lagu jiro oo hadda wali tadabaadigiisii yani maarta hadda laga baxayo waxaan ugu aadanna jilaal uu yahay wixii hore tan aad ahaydeen wixii aan ka dhawaaqaynaa dhulka inuu saliid yahay xaaladaas ilaahay baan maanta yaan u dhiibaynaa waxaan u soo noqonayaa dawladda Jubbaland iyo dawladda federaalka ah intaba waxaan ka codsanaynaa inay maanta ito ummadda Soomaaliyeed sidii loo badbaadin lahaa in loo istaago yaan u soo joodinaya sidoo kaleeto meelba meeshii ay ka daran tahay in haddii ayaduna la ogaado iyo ayadana loo baahan yahay Jubbaland kulli way wada taabanaysaa meeshii ay wax ka da'eenna ummadii oo dhan baa isugu soo guurtay waa la mid bay ayaduna ay noqonaysaa gobolka gadana waxaa weeyaan buundadii baar dheere ama meelihii xooluhu ay marahayeen yani xoolihii baa ka duldhacahay oo laga dulqaadahaya yaa laga dulqaadahaya
adduunka waxaan ka codsanaynaa in yani maaragtay ilaahay baa wax qaban karahaye in adduunkana kaalmo isku leeyahay in wax allaala iyo wixii maantayto Soomaaliya lala garab istaagi karo in lala garab istaago yaan ayadana yaan ka codsanaya sidaas oo kaleeto ummadda Soomaaliyeed oo dal iyo dibadba jirto ayaduna siday ugu istaagi lahayd abaartaas ayada ah si yani maaragtay dagaanadii loogu gurman lahaa ayadana waan soo joodinaya beesha sade oo dagaanadeedu uu aad u dheer yahay intaan hadda sheegay oo kaleetana ayaduna yani maaragtay uu yahay dagaankeeda sidoo kaleetana ay soo diin kilalka shanaad ay ayaguna ay dagaan oo mar walba meeshii ay wax ka jiraan mar walba ay u gurma jireen maanta dadkoodii xaaladaas u marahaya waxaan soo joodinayaa meel allaaliya meel ay jiraanba waxaan ugu baaqahayaa in maanta loo istaago hawshaas ayada ah rag iyo gabdhaba in loo istaago oo sidii dadkii maanta ito yani biyo iyo baad loola gaari lahaa ay u istaagaan baan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel alla meesha ay joogtana in mar walba meeshii daran in gacanta la saaro yaan ilaahay ka baryaynaa ilaahayna deeq buuxa inuu nasiiyo oo dalka kani maanta ito nabad yaa waarta ee in nabad ilaahay nasiiyo col baa xuna in col ilaahay inuu naga qabto abaar baad yaa laga ducaystaa in ilaahay nabad iyo barwaaqo ilaahay ina siiyo yaan ilaahay ka baryaynaa intaasna waxaan oga baxayaa halkaas intaas waxaa kaleeto oo noo dheer waxaad ogsoon tihiin wixii annaga yani maaragtay dagaankeenna ah inaan yani maaragtay maantayto waxyaalihii ka dhici jiray tuulooyinkeenna yani maaragtay ceel caddo oo kaleeto iyo dhamaso oo kaleeto iyo wixii ka dhici jiray oo aad ka tabanayseen ayadana yani maaragtay ama nabadda yani maaragtay waxyaalihii duqeymaha ayo dhici jiray inaa maanta ayadana arrintaas ayada inaynan zabinadan inaysan dhicin arrintaas ayadaana waxaa weeye ilaahay baa mahad leh wixii arrintaas ku saabsanna waanu ka wada hadalnay darisyadeenna waanu ka wada hadalnay waana islaaf garanay hawshaas ayada ah in dadka shacabka ah nabadiisa iyo wanaadkiisa iyo dagaankiisa in intaba la ilaaliyo ayadana waanu islaaf garanay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhowaada waxaan idinku soo dhawaynayaa inaan idin iraahdo insha allahu tacaala intii anagu maanta ay ahayd runtii inaanan hilmaami karin sidii aad iigu soo dhaweyseen garoonka intii aad gaadiid keenteen iyo intii ay gabdho yimid iyo intii culumo timid iyo intii dhalinyaro timid iyo intii ikhyaar timid ma ahan wax aan runtii aan koobi karahaya maaha waxaan idinka codsanayaa inta idinka maqan oo maanta ay ta halka kan yani maaragtay aan soo gaarin inaad ayagana salaan iyo ehelnimo fara badan inaad iga gaarsiisaan maxamed qaasim cali waxar TV caalamiga Star magaalada Kismaayo.